halkani waa BBC oo kala socotaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar telefoonada gacanta iyo boggeena internetka ciwaankiisu yahay bbcsomali.com. haddii aan bilaabo maasoo dhacaysa shaxda gabayga shilkii qurmaa lagu shufeeyaa waana lagu shukriyaa halkii shabaqu ku yaali shacabkana waa lagu dhagaashaa badda hagiye shanta hore kolkii aad dhahdo shiinka ku abaarto shal iyo khayr wixii soo haraa lagu shakaalaay 15 shacbaan gaaray oo shaaca bari taagan ramadaan sheeda soo galay biluhu sheegaan shaaxi maalmahaas ka abtaan qoon shahaadada shaydaankana waa laga xiraa shaydka xamilka iyo shariga qayr wuxuu geystay baa laga shalaaya karantu waxaan u wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan iyo si kasta oo noo maqlaysaan wax ku soo dhawaataan barnaamijka kaalimaha suugaanta barnaamijka waxaa noogu martay abwaan Axmed Cabdi Warsame oo ku magac dheer abwaan BBC abwaan waxaan weydiin doonaa su'aalo dhowr kadibna insha Allah kaalimihiisa suugaanta ayaan si toos ah u guda geli doonaa abwaan Axmed Cabdi Warsame soo dhawow horeyntii ودوي أسبوع سنة تويكاتو ودوي مستر علي ظاهر ودوي كل برنامج أبواني waxaan ku weydiinaynaa insha Allah ugu horeyntii waxaan maqalnaa in badan nagu soo laabta waa abwaan Axmed Cabdi Warsame BBC abwaan BBC waa abwaan nuucee ah ama waa qof nuucee ah bal taariikh nololeedkaaga wax nooga taabo baa santay ustaad Daahir maanta anigu waxaan ku dhashay deegaanka cadadna waxigiisa 1 December 1998 waxaan ku soo barbaaray deegaanka cadado maanta aniga waxaan waxyaalo badan oo suugaan iyo qowdada qaab dhismeed badan ayaan sameeyay oo in badan bulshada ka helay si fiican abwaani goormo ayaad bilowday in aad curiso maasooyinka ama gabayada aad curiso oo hal abuurkan xilli ma ayaad soo bilowday daahan mise ayaa la ekad marka bilaabaysay gabayada waxaan soo bilaabay taariikhda markay 2015 ilaa 2014 ay ugu soo dhacaan niir oo markaas raga dhaxaa in markii aan program sameeyo ama isku dayo in aan qori karo maasooyin iyo gurti rigisha yaa isku diiday marka kadib ugu dhalatay okay abwaani yaa kugu dhiirigelin macnaha qof kasta waxaa jira qof kasta dhiirigelin buu meel ka helaa inta badan sida aan ognahay marka uu wax bilaabayo ama uu afkaar dadku soo gudbinayo sida suugaanta heesaha waxyaabahaas oo dhan marka waxaan noo sheegtaa iyo kugu dhiirigelin cidna kugu dhiirigelisay adiga ma cid kugu dhiirigelisay ma jirin sababtoo ah waalid markii bilaabmaysa qofba si haba u dhacdaa moogta marka qofna adigu markuu arko dad wax duubaya ama gabayo duubaya ama heesa duubaya wuxuu jiraa qofkaas oo kale inaan noqoto wax isku day uu yiraahdaa qofna soo isdiino maaragtay soo yaro kulli dadku kala qabo yaxtaa aniga markii hore waxaan qaban jiray maaragtay gabayada markaan dhageysto waa xidhi jiray si fiican kolkii hore quraan xataa markaan dhageysto fahim baa oo dadku ka fahmaysanaa okay abwaani waxaan ku weydiinaa su'aal baa taala dadku waxay yiraahdeen gabayga qofku iskama bilaabo laba jirta oo waa inuu qofku qofna waxa la yiraahdaa waxyaabaha uu daraasay waxyaabahaas uu kala dhaxbaxa inta badan qofna waxa la yiraahdaa hiddo hore ayaa jiro woogis abkoogis abiis waxaas dadkaas noocaas oo kale oo sinji bay ku timaadaa adiga marka abwaani waa baranaa runaantii abwaan dad badan garanayaan baa tahay suugaantiisuna ay tahay mid saameyn xoogan bulshada dhexdeeda ku leh waxaad noo sheegtaa marka adiga sidee bay suugaanta aad ku soo gashay anaga ku soo galay waxay tarta gabayga siisa waxa loo qaybiyaa laba nooc sida aad sheegtay hawlkeenta iyo daraca loo qaybiyaa okay hawlkeenta marka kuleeyahay waa qof adigu ama qof xumeeyay oo ganacsigiisa uu ka dhacay ama maaragtay qof kale isqabteen ama cadawga u jabiyay waxyaalahaas oo kale taa ku dhaliya oo dad laga hiiliyo kulli qof laga hiiliyo waa kala kartaa waxaas ku dhaliya oo wuxuu isku dayaa inuu meeshaas mar afkaas uu ku dagaalamo sida meesha mid la baari karo moogta qofna waxa hidiraac uu ku yimaado asal uu yimaado gabaygu aniga hadeer awowgii dabad awowgii kole uga soo galaa oo sidaan taariikhda ku maqlay oo taariikhda aan ku hayo abayaal iyo abuyaal ay sheegeen saasaan ku hayaa oo taariikh wuxuu soo galaa aniga hab hidiraac uu soo galaa oo awowe badalay mise awow hooyada dhankee maya ayeeyo awowa dhashay oo adugu farcankeedii ka soo galaa oo ayeeyo xaggeedu ay ka yimaadaan sax si fiican
okay awaani waxaan maqlay suugaantaada inkastoo ay fara badan tahay aysan ahayn suugaan aan caawa ayadii oo dhan aan halkan kugu wada weydiin karo haddana waxaan jecelahay inaan nala wadaagto qaar ka mid ah suugaantaada waxaad noo sheegtaa gabayga la yidhaahdo himilo qaran waa gabay aan nolol ruuxantii dareen badan xambaarsan gabaygaas marka himilo qaran goormo ayaa tirisay gabayga himilo qaran waxaa tiriyey adigu haddeer ciyaantii isla qabsi uu jiray labada bishii sideedaad baan u malaynayaa inay aad u dhashay gabaygaas inaan tiriyo markii maaragtay waxaa taariikh ay ku dhaarteen sagaashan koodii inuu u noqon doono dalku maadaama markaas anna xisbiga mucaaradka aan taageerayay oo maaragtay xisbiga himilo qaran iyo wax saas aan taageerayay yaa waxaa ku dhashay gabaygaas inaan celiyo himilo qaran la yidhaahdo iyaduna dowladii iyo burburkii qallaasa intu dhacay ummadii baa ku sugta xataa dhulkii dadkii inuu kala guuro xataa burburkii sagaashameeyada loo noqdo wadaadka qaarna ay ku hanjabeen gabaygaas markaas uu dhashay gabayga inta aadan noo gudagelin gabayga ujeedadiisa guud maxay xambaarsan tahay oo himilo qaran magaca waan dareemaynaa balse meelo nooga taataabo si dhegaystayaashu ay nooga jaan qaadaan meesha aan marayno iyo gabayga ujeedadiisa guud ujeedadiisa guud horta waxay tahay gabayga hadba qofku waxaa leeyahay wax un xoogaa gabaygii abwaan wuxuu ku jiray abwaan xadraawi wuxuu saas asal ugu fadhiistay midna aan loo yeelin oo iska taageen ya hadda arkoo kaleeto ma lahan ilaahay baa meesha ku celiyey laakiin iyo daruuro iyo maarata sal ugu fadhiista ma lahan marka suugaanta markaad odhanaysa waa inay sal ugu fadhiista ama miisaaniyad ku leedahay haddii se miisaaniyad ama sal ugu fadhiista kule meesha waxaa ka baxaya mowqifkii ama awoodkii ala damacsaneed meesha ka baxaya marka aniga waxaa igu dhashay gabaygaas wuxuu hambaarsan yahay haddaan kaga dhaco kolley xisbiga himilo qaran oo garanay sidoo sheekh shariif axmed uu yahay agaasime uu yahay hogaamiye uu yahay difaacaya ama madaxda ama mucaarad badan buu difaacaya halka uu maaragtay muxaafid kale uu kasoo horjeedo xoogaa uu ka xaglinayo moodid uu leeyahay waxyaalihii la idiin dhiibtay ummaddii ma u qabataan macnaha cod baad saa ku timaada codkaa idinku doortay ma ku timaadaan uu leeyahay okay bal gabayga abwaana noo bilaaw haddii aan bilaabno sida waxay dhacaysaa shacba gabayga shiilkii qurmaa lagu shufeeyaa waana lagu shukriyaa halkii shabaqu ku yaali shucubkana waa lagu dhagaashaa badda hagiye shanta hore kolkii aad dhahdo shiinka ku abaarto shal iyo khayr wixii soo haraa lagu shakaalaay 15 shacbaan gaaray oo shaaca bari taagan ramadaan oo sheeda soo galay biruhu sheegaan shaaxii maalmahaas ka abxitaan qoon shahaada leh shaydaankana waa laga xiraa shaydka xamilkaay oo shal iyo khayr wuxuu geystay baa laga shalaaya shanta tiir ruuxii qiroo sheega waxa taagan sharcigana u hoggaansamay bulshada wararka sheegaan waa shiir shuftaa bay dhahaan oo shar soo wade shisheeya wata bay dhahaan oo shankaas rogay dalkuu shilay masiisaa isdhehe sharafta weynaay waa shaqaale shiinaha isdhehe sheer la soo galay shakigaas ayay wada qabaan shacabka qaarkiis shirka beenta ah nimankii wadoo shalayta noo yeelay shirka beenta ah nimankii wadoo shalayta noo yeelay oon ka shuufnay yaa dhiga shidada sharcaliya taagan iyagaa shisheeyuhu watoy sheeg u qalayaan iyagaa shucuurtii bedeloon rabishan geesooda iyagaa fikraansiga rabiya shookaha ah wixii shacabku uu nala ogaaya lagu shuraakoobay haddii ay nima sharaf raba yihiin nagama shuureen shirka lama istaagin waxaan gaba ku sheekaynin afartaas shanqar soo baxdiyo show la soo tumayda shaki waxaan lahayn oo innuhu shan u arkayaan musharax aan shidaad rabin haddana sheegay dhaqankeeda afar kale shuushkoo bixiya sheeko odayada himiloo shanteedii qabtoo sharaf yaqaanoyo himiloo shanteedii qabtoo sharaf yaqaanoyo sheekh shariifna uu u yahay hoggaan shabakadaas dhowra xasan sheekh iyo shakuurna oo qoraan qaladkii loo sheego qaybana shirarka u dirsadoo shacabku taageero shafka uma garaaceen maqruun aan shuhuud gelin niman aan show haddii ay tagaan bulshadu shilin ku beelaynin niman aan show haddii ay tagaan bulshadu shilin ku beelaynin sharciguna qaban karo haddii shuuta la horgeeyo shuruudahay ku dhaarteenna qaban wuxuu la sheego shalayna afar xunaa markay shaaciyeen hadalka shirka lama istaagin waxaan ba ku sheekeyn ayuu agayo saas ayuu dhacay waa mahadsan tahay awaane gabayga himilo qaran runaantii wuxuu taabanayaa meelo badan buu taabanaya gabayga markii horena arrin dheer baad marto oo si sahlan aan qof ku fahmi karin oo dadka waxaa la yidhahdaa qofka suugaanta fahamsan wuxuu arkaa waxyaaba wax yar oo lagu shaqlo meel ama wax yar oo hal eray meel la geliyo wuxuu ka soo saartaa macno weyn marka markaas gabayda ka mid ah baan u malaynayaa
kunka macnaha kunka eray wax lagu dhaho abwaankii xasuustaa eray ku kooban sax gabay saas oo kale jira marka tixdaani ruuxantii waa tix aad aniga cajibisay mina qaran marka aan leedahay shacbaanka kale dadku waxay xasuusanayaan bilihiiba xasuusanayaan gabayga hortiisa shacbaan oo kale tamarkaan leeyahay shacbaanka bilo kulli waa bil shacbaan oo la yaqaano oo lagu soo dadku ay galaan si fiican laakiin aniga meeshaas macnaha wajida wuxuu ahaa qof hore fiicnaa jiray haddii aad aragto haddana qof marka uu kugu xumaado dambe waa la iska xijaaba ummadana waxay leedahay a'uudu billahi min ashaytaan la shaydaanka waa la iska xijaaba markii soo qaadka lagu shaahna waa laga arkaa soo maaha wax dambe hataa la kaasima qofka waa ku beelaya ma jiro meeshaas oo dadka waxay waa kala saaraya meesha aad baad u mahadsan tahay abwaan kaas wuxuu ahay abwaan axmed cabdi warsame abwaan BBC oo aan caawa qayb ka ahay barnaamijkanaga kaalimaha suugaanta inta aan barnaamij lacayna ku kulmi doono waa bahda holac tiim oo idin leh ammaano ah